مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد سورة أين كبلا بينو درسكن وسورة سيدي أفرتنات مقعيدنا الله إلى سورة الفتح ما دام إلهي وكبلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقرآن كي مدينة كسود دقيوية oo looga jeeda hijrada kadib buu soo degay sidaynu arki doonno iyadu waxaabay ku soo degtayba markuu nebigu ka noqday maka uu dhexda ku sii jiro laakiin dee maadaamay hijrada kadib soo degtay waa qur'aankii madanigahaa aayadaheedu waa 29 aayadood suuradda jawigeeda si aynu ula noolaanno waxa habboon qisada ay ka waramaysa inaynu soo koobno taasi waxay ka faa'iido noqonaysaa sababtii quraanku ku soo degay ama aayad ku soo degeen marka aad garato iyo sida sababahaasi ay isugu xidhan yihiin waxaad la noolaanaysaa dhacdadii markaa jirtay iyo siyaabo kala duwan suuraddu qisadaas ay u tilmaamayso. nabiga waxa alayhi salaatu wasalaam waxa uu galay heshiis loo yaqaano sulxul xudaybiya heshiiskii ka dhacay meesha xudaybiya la yiraahdo kambalka ama duleedka maka agteeda ahaa waxa ka horeeyay heshiiska isaga socdaal uu nabi maxamed ka soo anbabaxay markii uu horeysay sidii uga qaxay markii uu horeysay ee uu ka soo anbabaxay Madiina ee uu soo noqdo Maka waa sanadii 6 sababtu uu soo kicitamay waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam manaan baa ilaahay u tusiyay inuu Kacbadii tagay oo ku umraystay timihii la xiray oo la gaabiyay amalka la soo gutay manaamka anbiyaduna waa qayb kamida waxiga sidaasay tilmaamayaan aayaadka suurada aakhirkeedu laqad sadaqa Allahu rasuulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون هل كودين نقولتك إن شاء الله آياتك سندي لحاد بهيد مركوا صاع ببحي وحصار راعي كونيا فربقل أو أصحابتي مجاهدين تاعي منافقين تين بدنا كم بدي واي عذر دارتين أما منافقو عذر دارت ما دام ماشى اللي تجيه أفر بقولي السيادة كيلومتر تاعي oo cadawga ubucdiisiyo dhaxdiisii ay sababtay u baaqdeen suurada dhaxdeeda ilaahay uu kaga warrami baqo iyo aan fariiri ama ka ku dhacay inuu yahay
nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo kaxeeyey xoolihii lagu qali lahaa kacbada hadyan baaliqa alkacba uma maxilluhaa ila albeyt alcatiiq xoolaha halkaa la geynaya ee ilaahay loogu dhowaanayo ayuu soo kaxeeyo geeliya 70 geela buu soo kaxeeyey marka uu gaadhay meesha cusfaan la yidhaahdo ayaa waxa la kulmay sahankiisa bay ahaayeen oo iyagu nabiga calayhi salaatu wasalaam si isbahaysi ula ahaa oo wixii warahee quraysh iyo maka la xidhiidha ayay u qaabilsanaayeen nabiga markii madiina dhexdooday deganaan akhbaarta iyo wararka halkaa ka jiro oo dhan iyagaa u soo gudbin jiray marka waana loo baahan yahay dadka muslimiintii halka ay maanta wardoonkooda gudahooda ka dhigeen waxay ahayd sida dee ummadaha sheeyada isticmaalaan inay dibadda ka dhigaan sidaasaa markaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii warkii kaga qaatay bishr ibnu sufyaan alkhusaaci dabeedna ninkii wuxuu sheegay qurayshi markay ogaatay nebi maxamed oo soo socda inay iyagoo xoolihii iyo wax walba wata macnaha soo guureen oo aanay kala hadhin nin kastoo dagaalcun ahaa ama rugcadaay ahaa baa la soo kaxeeyey waxaa loogu talagalay buuhi in maanta sutida lagu qabto oo aanad geli karin kacbada iyada wuxuuba nebigu ogaaday inay iyaguna jiraan kuraaculqaym meel la yidhaahdo 8 kilomitir markaa isagu jirta isagu 100 kilomitir buu markaa u jiraa maka oo meeshaas aynu tilmaanay cusfaan ay u jirtaa iyaguna 8 kilo meelahaasay u jiraan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam halkii buu ka hadlay dhibaatada nimankan haysata iyo siduu shaydaanku uga faa'iidaystay tolkii ayuu ka calaan calay markii dambe ummadii buu maqashiyey go'aan adagoo waxa uu yidhi haddii ay iga dhagaysan waayeen waxba والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالف والله إني أنك وأن كل الدجال الله من دونا أبوي بحيل هاي قصادرين مرنا ما تشوشين دونا أما أنا قاكرت الله يجرب أما أنا وضد كباير أما وهرجلي دونا حقاس إلى هنا وهرجلين دونا وأن كأدك بأصحابتي سمقشيي أصحابتي بالله الله يوحوري wariyaa jidka yaqaano nimankan in hor fadhiya mujrimiinta ah yaa inaga duubi karaya angeligoodaba weydaaranee iyadoo mar walba loo baahan yahay dal iyo dadba in la kala yaqaano oo dadka muslimiinta waa dad caalamka inay hogaamiyaan isu diyaarinayo hankoodu weyn marka macrifada dhulka ilaahay iyo dadka ilaahayba aad baa loo badsanaya waa koorsooyinka iyo seminaarada la qaadanaya kamitin baa soo boodo wuxuu aniga dabeedna wuxuu mariyay colkii meel naga oo buuraha la jafayo laakiin toobiye ah oo nimankiina la weydaaranayo meel dhow oo markaa lagaga dhacaya maka iyo xudaybiya halkaas uu markaa ku hogaamiyay colki dariiq waa adag yahay laakiin cadowgiina waa laga baxsanayaa meel toosanna wey nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu halkaa xudaybiya agteeda maraya ayaa hashiisii baa fadhiisatay dabeedna dadku waxay yidhaahdeen war waa tahashii nabiga fiicnaan jirtay daashay khala'at ilqaswa bay idhaah armay daalina waxa joojiyey ilaahay bahalkii maroodigii xabashida ilaahii joojiyey baa tanna joojiyey ilaahay waxaanu doonaynin halkan inuu dagaal ka dhaco wallaahi wixii suurtagal ah nimankaasi ay keenaan xaramka lagu weyneynayo waan ka aqbali doonaa buuli rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaasiba markaa hashii ay ku dhaqaaqdo ay ku kacday halkaa xudaybiye ayuu degay meeshii biyaha dabcan iyagaa awday oo nimankaasi colka biyihii ka hor joogsado dee siyaabaha loo dagaalamaa bay ka mid tahay colka in calafka iyo biyaha laga hor joogsado oo cunaqabatayn lagu sameeyo ceel yaroo meesha ahaayoo dee la yar dhuranayayna markiiba uu dhammaado waa loo soo cawday nebiga waxaa la yidhi colkiiba wuxuu cabba mahaya tiradiina waa badan tahay leeb buu qaado ku rida buuli riigiibuu markaa u qoday colku ka cabbi lahaa ayuu kolkaa u qodo leebkiisaasunbuu halkaa ku riday sidii awliyada ilaahay wax badan baa u sakhiranoo sidan arrimuhu ugu aadagiin dadka kale uguma adka malakul jibriil baalkunbuu ama garabkiisunbuu ku dhuftay halkan iminka la dhammayn laayahay dee riigga cajaa'ibka ee samsamka nebiguna calayhi salaatu wasalaam leebkaa ku rida unbuu ihi ceelka dabeetana wuu butaaco cid waliba waa ka dheregtay markay arrintu halkaa marayso nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa
uu diray nin qoladii reer Khusaaca had iyo jeer isbahaysiga isaga la lahaa waar nimankan u sheeg buurinka meesha jooga inaanaan dagaal u soconin inaynu xaramka u soconno fariintii waa la gaadhsiiyey way diideen reer Khusaaca haddana wafdi kale soo diray way gaadhsiina waxay dhahaan war maxamed dee ka xishooda dagaal uma socdee weligeed bana cid xaramka u socota looma diidi jirinoo hadiga wada oo hadigiiba dee calaamadsan yahay waanu u diidaynaa bay idhahaan kani dadkii caadiga ahaa lama mid aha gaaladu inkastoo yidhaahdaan diin baa la xaq dhowrayaa xuquuqul insaan baa la xaq dhowrayaa qaanuun baa la xaq dhowrayaa caalamiya markay muslim joogsato muslimku waa looma ooyaan isagu sharcina male xaqna ma laha xurmana ma laha sida dee imikaba maxaabiista muslimka loola dhaqmo waxay yidhaahdeen ummadaha kale haa bilaha xurmadana waanu xaq dhowraynaa xaramkana waa ku tixgelinaynaa laakiin kuwan iminka kuma jiraan dadka ilaahay kuma jiraanee xaramka iyo ashhuru xurumkaba loo tixgelinayo kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray nin asxaabtiisa ka mid ahaayoo markaa isagu intaan ninkaa la gaadhin nimankii kolba qof bay soo direen iyagiya waxay soo horraysiiyeen nin mikris ibnu xafsin lo odhan jiray dadkana wuu kala yaqaanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam war mikris baa halkaa ka soo baxaye waa midaan ballan lahayn oo qaadir oo ballanfuryo badane bal wuxuu yidhaahdaynu eegi isna wax yidhi loona jawaab safiir labaad bay soo direen haddana oo julays ibnu calqama la ydhaah isagana wuu yaqaanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam war ninkaa la soo diray ee iminka soo socdaa isaga iyo reerkiisu way cibaado badan yihiinoo dareen unbaa geli doonee bal hadyiga kiciya buuhi xoolahan markaa aynu wadnee xaramka loo wado kaa kiciya si u arko dee geelii baa la kiciyo wada ololayo wada gaajoonaya nebigaba lamuu kulmina dib buu u noqdayoo quraysh buu kula kacayoo markaasaa wuxuu ihi waar nin xaramkii ilaahay u socdo hadyigii wadaa hor joogsateena waa khaldantihiine dee ka daaya oo sii daaya eg waa taxaaluf waxaa loo baahan yahay ra'yulcaamkiibuu kasbanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo gaalada laftigoodiibuu kala jebinaya ilaa waa siduu kaga adkaaday dagaalkii axsaabna sidee aynu markaa kusoo marayno waa nooc siyaasada oo nebigu isticmaalaya calayhi salaatu wasalaam dabeetana ninkii isaga ahaa magacaa la odhanayay way la hadleenoo waxay idhahaan ijlis innamaa anta acraabiyun laa cilma lahu waar annagaa wax reermiyahoo aan aqoon siyaasado lahayn marka horeba soo qaadannae waar iska fadhiisa bay dhahan waxba sheegi maysi adugu dee isaga iyo qabiiladiisi markaa dhinacaasee u baxeenoo wuxuu ihi dee haddaba annagu noocan la dagaalgeli mayne waanu idinka goosannay wuxuu ka mid ahaa gaashaanbuurta waxay soo direen nin curwat bnu mascuud la yidhaahdo ayay soo direenoo ninkaasaa markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isku dayey inuu aad ula dhigdhigo aad ula doodo muran badanna ula galo laakiin nebigii asxaabtuna munaawaraad bay u muujiyeenoo casharo xagga indhaha ah ayay tusiyeen ninkaa isaga ahi markuu meesha yimid dee nebigu la hadlo wuxuu uhi war dee meeshan haddii aad col soo kaxaysatay maanta oo aad doonayso inaad tolkaa cidhib goyso dee ceeb caalamiyay kugu noqonaysa haddii sida kale ay u dhacdo adiga lagaa adkaadana dee noocan isaga ah ee axbaashta ah jacburkanaad soo urursatay midhabo meel buu ka dhici doonaa waa kii abuubakar caayay markaa abuubakaroo nin aad u xishood badan ahaa ayaa caayay oo isaga iyo sanamkiisiibuu isku caayay waxaa ku samee sanamkaaga ayuu ku yihi wax aad u khatar ah markaa saasuu eego wuxu uhi wallaahi berigii jaahiliyadii baad abaal igu lahayd oo aanan ka jawaabine waan kuu jawaabi lahay markuu caynkaa leeyahy ninuu adeer u yahay baa nebiga seef la dul taagan calayhi salaatu wasalaam oo ka mida gaadhkiisa hubaysan ninkaa isaga ah oo muqiirat bnu shucba la ydhaa dhallinyaradii firfircoonayda markuu doonayo inuu nebiga ninkani uu ku dhow yahay rasuulka oo sankuu kaga jiraayo kolba garhkuu qabanaya maxamed ou ka daal sidaa yeel dee bustayntii kufaarta ayuu wadaayoo kolba markuu garhka kusoo dhoweeyey gacantiisa ayuu seefta daabkeeda kaga dhufanaya markaasuu leeya adeer ka daa gacantaada nijaastaa nebiga ha taabsiinine markaasuu leeya makii nacaska ahaabaa adeer magtaadii baanu la il darannahaye ma budhcadnibaad nagula soo noqotay 13 nin buu markaa dilay muqiire berigii jaahiliyadii intaanu islaamin ka hor dabeetana kana adeeru ahaabaa magtiisii bixinayay taasuu sheegayaa marka ninkii waxba ma saldhigin sidiibuu ku noqday kadibna nebigu wuxuu diray markii arrintii jiq noqotay nin asxaabiyo khuraasha tubnu umaya la ydhaa ayuu gaadiidkii uu fuushanaa nebigu siiyo wuxuu uhi waar u sheeg inaannu cumro u soconno aanaan dagaal u soconnin sidaa qurayshu sheeg
ninkii markii uu iyagii ag tegay baa lagu soo booday oo ninaan taageerayaal badan meesha iyo tol ku lahayn buu ahaa wixii jaahiliyaddu isku tixgelin jireenoo awrkii nebigana way boqongooyeen isagiina gaashaanbuurtiibaa sigay waa la soo badbaadiyo wuu soo noqday nebigu asxaabtii uu la hadlao cumar buu ku yidhi war bal cumarow orod farriinteenna gaadhsii oo dhambalwada meesha ka noqo cumar xaqiiqadii buu sheego wuxuu idhi dee waad garanaysaa saan ku ahaa nimankan intaynaan soo qaxin meel ay iga galaan bay waayeen awooddaydii iyo afkayga labadaba dee taageerayaashii iyo tolkiina waa ka soo dareereen meesha ama kuma hayo laakiin waan ku tilmaamayaa cumaan ibnu cafaan oo ehelkiisii iyo uma tixgelisaaba ay joogtoon loo maraynin ayaynu u diraynaa nebigu u arkaya inaanay cumar fulaynimo ka ahayn laakiin dee tilmaan daacadnimo ayd sidii buu cumaan ku diray cumaan markiiba nimankii gaalada ahaa ee isgaranayeen ama ehelkiisa ahaabaa soo dhoweeyey gaadiid ka saaray magantii siiyey madaxdii quraysheed buu la kulmay dabeedna cumaan way ku gacan saydheenoo waxay idhaahdeen war waxba kaa dhagaysan mayne waxna aqbali mayno loona soo dayn maayo maxamed haddaad doonaysa kacbada maa dawaafi oo adigu maad cumraysan maya buuhi xaasha nebi maxamed oon dawaafin anigu ma dawaafayo dabaalka noo fadhi bay hore ma noqonayside adigana waanu ku xabisnay halkan iska joog warkiibaa dabeedna waxaa lagu celiyey cumaan way dileen rasuulku sala allahu calayhi wasalam aad buu u cadhooday 1400 buu ku soo ururiyey geedkaa ilaahay uu suuradda ku sheegay laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim ilaa aakhir laaya 1200 baa uu soo ururiyey markaasaa wuxuu uhi waxaynu gelaynaa waa kama dambaysi heshiis adag ayaynu gelaynaa heshiiskaa isagaa asxaabta qaarkood waxay leeyihiin wuxuu nagula heshiiyey inaanaan cararin nin firdhada ama baxsadaa inaanu jirine nin waliba minjabir la dhidbado oo sutida cadowga loo qabto waliyaa qaarkoodna waxay leeyihiin waxay nagula heshiiyeen meesha lagu dhinto oo aan haday kalifaysa aan laga soo noqoninba nin qura ayaa ka meeraysto munaafiq meesha maraya ahaayoo reer ka mid ahaa reer ansaareed oo jadubnu qays la odhanayo oo tilmaamihiisa suuratu tawba aynu qaar ka mida kusoo marnay ninkaasoo qura 1400 heshiiska ka hadhay isagu markaa hasha sibirteeda ayuu isku toosiyey ninkii geeljiray sibirteeda waa garanayaa halkaa hasha cagaheeda iyo meeshaasuu galayoo goroflagadka hasha ayuu isku toosiyey si aan loo aragba oo meesha inuu awr taagan yahay un loo moodo intii kale nebiga saasay heshiiskaasay ku gacan qaadeen warkii haddana waa la saxo waxaa la yidhi cumaan waa nool yahay mufaawadaadkiiba halkii laga sii bilaabay waxay markaa garteen in arrinku aanu sahlanayn in loo baahan yahay in la kala go'o waxay soo direen suhayl ibnu camar nin la yidhaahdo suhayl baa markaa heshiis la qoray rasuulka sala allahu calayhi wasalam heshiiskaa isaga ah wuxuu ka kooban yahay qodobo muuqaalkooduu yahay inuu muslimka ku qallooco laakiin ilaahay markii dambe uu maslaxad ka dhigay heshiiskaasi waxa uu leeyahay cid kasta oo horta in xabajoojin la sameeyo aynaan dagaalamin 10 sannadood muslimka iyo gaalada haddaynuna cidda soo islaamta ee xagga iyaga ka timaadee xaggiina timaada in noo soo celisaan haddaad tihiin muslimiinta ciddii idinka timaada muslimiinta haddaad tihiin inaanaan idiin soo celinin ee uu iskala kaayo joogo arrimo noocaasoo in sanadkanna idinkoo intaa idin jirto kacbada ilaahay wixii aa u socoteenoo cumro ah aydaan cumraysan karina hadda halkan ka noqotaa sidee kibriyaagooda iyo isxariifintooda ay u muujiyaan bartan ka noqda bay idhaa imika halkaa ka laabta geelaa doontaan wato oo sanadka soo socdabaa laakiin soo cumraysan kartaan oonu idiin ogol lahay markaasaanu fiisaha idin siin karaynaa sidoo kale marka soo gelaysaana hub waaweyn lama ogola ka yaryaree seeftiya wixii la midana qariya oo galka ku haya arrimo noocaasa markay daldaleen raggii markaa dee qiirada badnaabaa booday cumar binu khadaab baa ka mid ahaa nebiga iyo abubakar buu la hadlo wuxuu idhi miyaynaan muslimiin ahayn nimankana gaalo miyaan ahayn keenna dhintaa miyaanu janno ku jirin iyagana kooda dhintaa miyaanu naar ku jirin maxaynu sifada xun u siinaynaa diinteenna iyo nuqsaanta maynu ragga iska celinno aynu casharo u dhigno abubakar baa busteeyoo muslaxay nebigaa isaguna muslaxay markii dambe cumar waa degay oo wuxuu gartay dee inuu tilmaamo alla ku socdo iyo isagoo ummadda u danaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam heshiiskii markii la qorayey ninkaas suhayl la idhaahdaa waxyaabo badanoo heshiiska uu ku deedifeeyaa buu doonayoo cali baa qoraya heshiiskaoo bismi illaahi araxmaani araxiim buu nebigu ku yihi qor waar naga jooji buu ihi raxmaanuraxiimka adaa watee garan mayne bismika allaahumma aynu isla ogaan jirnay berigii jaahiliyadii un qor
kani waa kii uu kula heshiiskan waxa galay muxamedun rasuulullaahi qorbuu mar labaad nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adeer haddaad rasuul tahay kulamaanaan dagaalaneene rasuulka naga gooyo magacay aabbaha iyo kaaga un qor buui wakhtigaasuu markaa nebigu uhi bal caliyow ka bi dee anugu bi'in maayo buui bisinkii ilaahay iyo rasuulullaahi anugu bi'in maayo markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam amardiida kumuu qaadine bal itusi buuhi maadaama aanu dee qoraalka aqooninoo isaga mucjisaadkiisa ay ka mid ahay rasuulka inaanu fartiiyo qoraalka aqoonin cali baa tusiyo markaa nebigaa gacantiisa ku masaxay calayhi salaatu wasalaam waa wakhtigu mar labaad haddana cumar booday ee dib loo dejinayo arrimo adagoo runtii imtixaana ayay ahayd markii heshiiskii la qoray ayaa waxaa soo dhacay abujandal ninka la yidhaahdo silsilad ku xidhan oo ka soo fakaday maka abujandalkan maxaad ka taqaanaa waa ninkan heshiiska saxeexee suhayl laydhaa inankiisii inamadii uu jeclaa mid ka mida ayaa soo islaamo isa soo taagay colkiibuu isku soo dhex tuurayoo wuxuu leeyahay haddaa muslimiinta tihiin dee soo nabadgalay raggii aan doonayayna waa hayaa shisheeyihiina waan ka soo fakaday aabbahay nagala joogo dee maca salaama waa israacaynaa dabeedna odaygii wuxuu idhi heshiiska ninkii horreeyey lagu fulinaya waa ninkan mar haddaynu heshiiska saxeexnay maxamedow dee inankayga waa la celinayaa maca silsiladiisa laakiin idin raaci maayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin ciirciiraya ma ahayne dee nabad iyo dagaalba waa yaqaana wuxuu uhi waa run heshiiskii waynu saxeexnay inankana waa la celinayaa asxaabtii baa cerkaa isagiiba horta qayliyey waryaadheen war miyaydaan waa sidee war maantaan la celinayaa dee u muusanaaday rag badan baa markaa qiira qaado waxay idhaha dee ninkan yaynaan celinine dee maxaynu sidan u yeelaynaa ma heshiiska waynu saxeexnay isaguna ha sabro ilaahay ajri ha weydiisa faraj baa ilaahay u siinaya cumar binu khadaab baa wuxuu ihi intoo seefta garabka ku soo qaatay ayaan yaro laalaadiyey isagiina markaasaan yaro garab galay markaasaan ku idhi waa gaaloo horta ilaahay baa faraj kuu furiya iska sabir abujandalow dee waxaanaad ogaataa kan meesha joogaana waa gaaloo dhiiggiisu waa ka ayga oo kale uun marka waxaan doonaya buui intuu saafka la baxo un inuu aabbihii kurta ka jaro laakiin ninku aabbihii wuu ku yaro lexa jeclaaday buui oo aabbihii muu dilinoo jaaniskaa kamuu faa'iidaysanin buui almuhim sidii baa lagu celiyo dee mar dambea farajkii uu nebigu filaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay uu u furay oo uu siiyo dee waa kuwii jabhado abu busayr ninkii la yidhaha uu hogaaminayay ayaa dilaacay aahaarta iyo raadkii iyo natiijooyinka wanaagsana ka soo baxay waxaa ka mid ahaa heshiiska in horta lisaalix lmuslimiin waxaa loo arkayay muslimiinta inuu ku qallaco laakiin maslaxadda muslimiintu noqday heshiiskani oo waa kan ilaahay ku tilmaamayba fatxigani faraj ilaahay uu siiye muslimiinta ayuu ahaa oo heshiiskan uga soo baxay oo diintooda iyo dadkooda iyo cududooda milatari ay u heleen innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan meel yaroo maqsinahoo lagu shaqaysanaya dadkeennu ku hordhigaanoo hunguri lagu baadi doonayo innaa fataxnaa saa kumay soo degine cisi ummadi ay helayso diin iyo dadnimada ayaa ay ku soo degtay ayaan hoos loo celinaynoo qur-aanka meelaan munaasib ahayn aan lagu qorin heshiiskaa isagaa sanadii 6aad buu ahaa sanadaa 6aad hadduu 1400 nebigu ku yimi 3 sano kadib sanadiisi aan idhaahne 2 sano kadib sanadii 8aad 10,000 oo qof buu ku yimi rasuulku sala allahu calayhi wasalam 10,000 oo mujaahid isagoo hogaaminaya calamo kala duwan wata oo guutooyin isdaba socda ayuu soo geliyo sidii baa lagu buufiyay sanam iyo mushrigba waa ka ilaahay fadxiga ku tilmaamay subxaana nataa'ijka ka soo baxay waxaa ka mid ahaa gaalada inamadoodii iyo hablahoodii oo islaamaya madiine imanaya soo soconayay waxaa ka mid ahaa gaalkii ugu adkaa ee nebigu aada uga cawday cuqbatu bnu abi mucayd la odhanaya inantiisi la odhan jiray umu kalfuun baa ka mid ahaa dadka soo islaamay markay madiine timidna ee la yidhi ha la celiyo heshiiskii ha lagu fuliyana suuratulmumtaxina baa ilahay uu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum lmu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihin fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila alkufaar laa huna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahun dumar ha celinina baa lihi asxaabtuna saasaaba markaa ay kolka horeba qabeen inaan dumarku heshiiskaa soo gelayn raguunu yahy ilaahayna taasuu ayiday ha u celinina baa lihi uma qalmaane waxaa ka mid ahaa jabhaddii uu furay ninka abu busayr la odhan jiray nin dee maka ka yimi buu ahaa 2 nin bay ka soo daba direen qurayshiyo madiine ayay yimaadeen 2dii nin dee ninkana naloo celiyay bay idhahan sidii heshiiskeennu maxamed oo ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi waan idiin celiyey waa raac meel dhexe markay 2dii nin sii marinayaan ayuu u kaarteeyey khad buu dega wuxuu uhi war dee ay isyara aamineen nin dee isdhiibay oo iska socday uu iska dhigay buu ihi niyow seeftaadaasi aad bay wanaagsantay mid buu ku yidhi
oo runoo raggaan u samaysto waan ku meeshay taabato waa la yaqaanaa buuri bal ma yar eega haa buudha wuu dhiibay isagiibuu kurta hor dhigay kii kalena isagoo firdhaduu madiine ku noqday rasuulku sala allahu calayh wasalam intuu dhoosha ka qoslay baa wuxuu ihi weylun umma musciru xarbin low kaana macahu rijaal wallaahi waa dagaalooga adag ninkaas hadduu rag heli lahaa dagaalooga adag wey dee maxaynu isleenahay buu kiina mar haddee quraysh u sheego waxaa tidhaa ninkii maxamed wuu soo celiyey dee wuu idilay dee wuu firdhaday maxaynu isleenahay anugu dee fuliye dadka dee idin qabqaban maayo go-aankaygu waa inaan soo celiyaa waa heshiiskiina fuliye waxaa akhiiran heshiiskaa isaga ahi markii dambe uu ku fashilmay nabiga calayhi salaatu wasalaam qolyo isbahaysigiisa ka tirsanaa inu hore usoo sheegno reer khusaace la odhanayo oo heshiiska dhinaca rasuulka galay iyo qolo quraysh kula jirtay heshiiska labadaa qolaa dagaalamay bartaasuu heshiiskii ku burburay sidaasaa ilaahayna dadkii muslimiintaa faraj ugu sameeyey ninkii abubasiir la odhan jirayna faraj labaad buu noqday ninka dilayoo markii uu madiine kusoo noqday wuu iskaga baxay oo wuxuu ihi dee nebigana waxba culaysa ku noqonin oo yaan dee cudurdaar laga helin adigana yaan mar labaad lagu celinin meel dhexuu galay safarada quraysheeda u socda shaam ee saliidda iyo raashinka soo qaadayuu jidgoyn u galay halkaa wax alla wixii soo baxsadaaba isagay ku beeraan ee ka soo baxsada maka xaggan madiinaba ma yimaadaan jabhadda waa loo baahan yahay halkaasaa dabeetana ay galeenoo kolkaasaa safar u baxa shaam ayaa la waaye ku ka yimaadana nimankii quraysheed farriin bay soo direenoo waxay dhahen heshiiska qodobka ah waanu ka noqonnay ee waxaanu kaa codsanaynaa dadka halkaa ku ururee cunaqabataynta nagu haya min fadlak kuwaasuu naga soo dareeri heshiiskana cid alla cidda kuu timaada ha kula joogtay ha soo celin farajkii uu nebigu asxaabta ugu bushaaraynayay bay heleen waxyaabaha inooga muuqanayeen qisadan waxaa ka mid ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay horumarka uu siiyey iyo dhinac walba inuu qaa'id ka ahaabaa meesha inooga muuqanaysa oo xataa ummadda wixii dan u ah ilaahay uu ku hagayo waxyaabaha meesha ka soo baxay waxaa ka mid ahaa halkiibaa lagu xalaaloobay oo nebigu uhi xoolahana wadan halkan ku qalo cumradii halkan aynu ku xalaaloobaynaa sanadka dambeaynu qallayn asxaabtana may aqoonin wakhtigii hore la xaji jire la cumraysan jiray xoolo aan xaramka la geynin la qalo waa kuwiisa soo taagay ayidhi dee hadyigii oo xaramkii u muuqdo sidaynu halkan ugu gowracnaa talada nebigii asxaabtu ay ku kala badbaadeen waxa soo bandhigtoo soo jeedisay xaaskiisii ummu salama markaa waxay tihi nebiga qowlunbaad ugu sheegtaye bal iyaga ficil ku tusi oo adigu horta hadyigaaga gowrac kadibna way kugu dayan nebigoo cadhaysani markuu iyada u yimi sidii baa nebigu ku gowracay iyagiina midiibay isla jiiri gaadheen iyo wixii ay xoolaha ku qalayeenoo deg deg bay u qaleen bartii baa laga laabtay oo heshiiskaasina markaa saa uu ku hirgalay cumradiina halkaa xasri baa ila dhacay qur-aanku siduu ka warramaye waxaynu halkan ka arkaynaa cuhmaan ibnu cafaan fadliga uu leeyahay iyo runtii dee nafti hurannima ayuu sameeyey sidii caliba habeenkii hijrada halkii nebigu uu hurday uu isagu u seexday markuu rasuulku baxayay kacbadii ma dawaafinoo rasuulka kama dooranin iyadoo nebigu uu maqan yahay inuu isagu dawaafo halkaa iyada ah waa diiday cuhmaan qoladii gashay heshiiskan isagaa waxaa loo yaqaanaa asxaabu baycati ridwaan heshiiskii ilaahay uu ka raalli noqday raggii saxeexay baa loo yaqaanaa waa ragga uu nebigu ugu bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam intii halkaa inaanu ilaahay naarba gelinayn ee jannadiisa unay helayaan waxaa nataa'ijka ka soo baxay halkan ka mida dadka muslimiintii dagaal iyo heshiis labadaba way yaqaanaan iyo in cadowga lala warwareego hadduu warwareegayo siyaasad lala dhigdhigo aan lagaga guulaysan karin waana waxyaabaha meesha ka muuqanaya weeye fadliga khulafada ayaynu arkaynaa iyo mawaaqifta adadagay nebiga la berber taagnaayeen calayhi salaatu wasalaam xaaskii sulaym geesinimada iyo ra'yigeeda qaaliga ayaynu arkaynaa iyo ooriyaha wanaagsani ee aqoontooda la kobciyey ummadda inay qayb weyn ka qaadanayaan badbaadadeeda markaynu qisada soo ururinno inahaa waxa sii dheer inay qurayshi intaa aan heshiiska la saxeexin ka hor mudmudaysay rasuulka munaawaraadna muujinayeen 40 nin ama 80 bay idhahdeen xagga dambe kaga yimaada oo dabada usoo roga colka maxamed oo soo didiya gaarhkii iyo korjoogii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa qabtay 80kiiba nebigaa la hor keenay wuxuu idhi iska taga waanu idin sii daynay cafiskaasi ka ogolaysiiyey buu ka mid ahaa inay heshiiska saxeexaan suuradduna way inoo tilmaami doontaa qaala allahu tacaala
bismi illaahi araxmaani araxiim innaa fataxnaa laka waanu kuu furnay nebi maxamedo fatxan mubiinan furitaan cad waanu kuu furdaaminay wixii kugu adkaa liyaqfira laka allaahu si ilaahay uu kuugu dhaafo maa taqadama wixii horreeya oo min dembika dembigaaga ah wamaa ta'ahara iyo wixii dembeeyey wayutima nicmatahu nicmadiisana u dhammaystira calayka dushaada wayahdiyaka ilaahay wuxuu kugu hagay siraatan mustaqiiman jid toosanna waa kugu hagaya wayansuraka allah si ilaahay uu kugu heliya nasran haylimaad casiizan oo adag oo taabagal oo mudakar ah waan kuu furay furitaan cadoon cidnaba ka qarsoonayn oo natiijooyinka ka soo baxay iyo farajka laga helay aynu ka soo warranno qisada ku cad suuradda dhexdeedana aynu ku arkay waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mid ahaa sanadii 7 dagaalkii khaybar buu galay yuhuudda oo madiina dhinaca waqooyi ka xigay ayuu dagaal la galay waa kii cali hogaaminaya qaa'idka ka ahaa radia allaahu canhu qaniimada halkaa laga helay deegaanka iyo beeraha iyo barwaaqada ah waxa meeshaa ku guulaysan karayoo qaniimadaa wax ka helaya buui raggii geerida igula heshiiyey ee markaa baycatul 1,200 ee qof ayuunbaa tegi karaya halkaa waadka ilaahay aayaadka kaga warramaya inay munaafiqiintu farta wada taagayeen ay lahayn annagana nagu dar dagaalkaa kiima kana waxay lahayn naga reeb kana waxay lahayn nagu dar ilaa way arkayeen in nimankan markiiba lala kacayo xoolo badanna laga helayo waa ka aayaadka ilaahay ku canaananaya wuxuu se raaciyey qolada hijrada xabashida u gashay xabashida ka soo noqday jacfar iyo colkiisa raggaasoo iyaguna nafti horannimo badan muujiyey kuwaasubaa ku darmi karaya fatxigu dhinacyo kala duwan buu ahaa natiijooyinka ka soo baxay waxaa ka mid aya faa'iidooyinka buu ilaahay yidhi si ilaahay uu kugu dhaafo dembigii horreeye ka dambeeyaba waa arrinuu rasuulku la gooniyey sala allahu calayhi wasalam si ilaahay nicmadiisa uu kugu dhammaystiro nicmada diinta iyo nicmada guusha iyo horumarka islaamka si ilaahay uu ku hanuuniyo si ilaahay uu kugu hiiliyo waa nicmo diineed iyo mid adduun iyo mid aakhiro labadaba waa dembi dhaaf diin lagu dhammaystiray dariiqii toosnaayoo lagu hanuuniyey dadka ay sayseen oo lagaaga hiiliyey intaasoo isku qoofalan baa halkan ka soo baxay liyaqfira wayutima wayahdiyak wayansurak afartaa arrimoodoo isdaba socda ayaa goobtan ka soo baxay baa ilaahay wy dembi dhaaf baad heshay diintii baa lagu dhammaystirayaa iyo nicmadii hanuunkii baa lagu hagaajiyoo lagugu hagay cadowga ay sayseenna waa lagaaga hiili markay suuraddani soo degtay asxaabta nebigu waa u bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay waxay igu soo degtay suurad aan ka jecelahay wax alla waxa dhulka ku sugan oo dhan wuu ku akhriyay asxaabta way hambaliyeeyeen waxaana yidhaahdeen hanii'an marii'an yaa nebiy allah hambaliyo ayaanu ku leenahay mar hadduu ilaahay taa kugu ballan qaaday annaga si talow muxuu nagu samayn doonaa ilaahay markaasaa ilaahay uu soo dejiyey liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaat aayadaha dambe aynu u tegi doono rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu ilaahay ugu bushaareeyey dembigii hore iyo dembigii dambeba inuu ka dhaafay bustaha iskumu laabanin ama isma dhiganin oo ma odhanin sida dad badani samayn lahaayeen dee kol haddii dembi hore iyo mid dambeba la yska dhaafay dee maxaa laga cibaadaysan iska fadhi oo iska istareex ma odhanin nebigu laakiin wuu kordhiyey xagga khayrka hore ugu dhaqaaqayay buu xoojiyey waxaan cidiba samayn karinba xaaskiisii caaisha la yaabtay habeenkii siduu cibaadaysanayoo oo sawtan ilaahay aayadda uu kugu bushaareeyo dembigii hore iyo kii dambeba kaa dhaafay cagihiibaa dhiiggii ku gororay oo ku qarqarxee maxaad sidan u yeelaysaabay ku tiri rasuulku sala allahu calayhi wasalam jawaab qiimo badan buu siiyo waxau idhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura dee waxaan jecelahay aniguna inaan ilaahaas nicmadaa ii sameeye u mahadnaqo addoon mahadnaqa inaan noqdaa baan jecelahay buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay taasi tilmaamaysaa gobonnimada iyo duwanaagga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida ilaahay uu u toosiyey huwa ilaahay aladii ilaahi weeye anzala sakiina xasilooniduu ku soo dejiyey fii quluubi almu'miniin dadka mu'miniintaa qalbigooda liyasdaaduu iimaanan si ay iimaan u kororsadaan maca iimaanihim iyagoo iimaankoodii hore ku daraya walilaahi junuudu samaawaati waalard ilaahay wuxuu leeyahay collaalka cirkiiyo dhulka samooyinkiiyo dhulka collaalka jooga ilaahay baa iska lahoo dira
wa kaana allaahu rabbi wuxuu ahaaday caliiman xakiima mid cilmi lahoo xigmadda leh liyudkhila almu'miniin guushaa ilaahay wuxuu u keenay si uu geliyo mu'miniinta ragga ah iyo walmu'minaati dumarka alla rumeeye jannaat beero tajri ay ka socoto jannaat tajri min taxtiha alanhaar webiyaashii ay hoos marayaan beerahaasuu ilaahay mu'miniinta gelinaya khaalidiina fiihaa way ku waari wayukafira canhum sayi'aatihim dembiyaalkoodu ilaahay uu ka dhaafay wa kaana daalika taasoo la helaa waxay noqotay cinda allaahi rabbi agtiisa fawsan cadiima liibaan weyn intaasoo isku qoofalanaya jannadaasoo barwaaqadaasoo la helaa waa guul weyn wayucadib almunaafiqiin baa ilaahay uu doonaya munaafiqiinta raggaa inuu cadaabo walmunaafiqaat iyo dumarka cudurka munaafiqnimada qaba walmushrikiina walmushrikaat iyo ragga iyo dumarka gaalnimada cadaysta iyagana ilaahay waa cadaabaya labadaa qolo addaanniina billaah waa kuwa ilaahay ka malaynaya danna saw mala xun oonu ilaahay muslimka kula dhaqmin ayay ilaahay ka malaysanayaan calayhim dushooday ahaatay daa'iratu saw xumaha wareegaya balaayada iyo baaska wareegaya dushooda allaha yeelo waqadiba allaahu calayhim walacanahum ilaahay baa u cadhooday waacadda lahum jahannamo naartaasuu geliyey wasaa'at way xumaatay masiira meel loo noqdana halkaasaa u xun walilaahi junuudu samaawaati walard ilaahay isagaa iska leh colka samooyinkiiyo dhulka ee u heliya mu'miniinta wa kaana allaahu casiizan xakiima ilaahay baa cisi iyo xigmad baleh natiijooyinkii nebigu uu helay waxaa la mida natiijooyin wanaagsan oo halkan laga dhaxlay oo dadka mu'miniinta ahi ay heleen oo sidoodaba dee adduunyada waxaynu u joognaa imtixaan qofka siyaabo kala duwan loo imtixaanayo waxyaabaha laynagu imtixaanaya waxaa ka mida dee cadowgaa shisheeye ee ilaahay uu iska keen horgeeyey ee uu yidhi safkiinaan taagna idinku waajaha isagana safkiisa shaydaan baa ku soo jiree dawa idinkaa dadku maxay yeelayaan iyo tallaabooyinkay qaadayaan ilaahay wuu eegaya cidda haddaba siduu ilaahay doonaya yeesha diintiisa iyo dadkiisa u helisa natiijooyinka wanaagsan baa ilaahay uu siinaya waa ammaanay ilaahay sidaa uu nebigaba u ammaanay mu'miniintana waa la ammaanay mu'miniinta ammaan waa u tahay gallad sheegashana way u tahay inuu ilaahay u deeqay subxaanahu wa tacaala markaasaa rabbi waxau idhi ilaahay waxa uu soo dejiyey degganaanshuu qalbigii mu'miniinta ku soo dejiyey iimaankoodii hore si ay iimaan ugu darsadaan haa goobta la joogo eeg waa cadowga dhexdiisa cadowgii laga soo qaxee reer maka ayaa kambalkiisii maka la jooga deegaankiisii iyo dadkiisii iyo magaalooyinkiisi waa tiro kooban haddii lagu habsado ama dagaal bilaabmo dee gurmad ma helayaan iyo meel dhaawac la dhigtay iyo dhimasho toona bartaa iyagoo ku jira ayay rasuulka go-aan la qaateen sala allahu calayhi wasalam go-aankaasoo adkaa kiisa dagaal kolka la eego go-aankaasoo adkaa marka la eego kiisa heshiiska ah la saxeexayo labada way adkaayeen labadiiba nebiga way la qaateen calayhi salaatu wasalaam waxay la qaateenoo kile ku dhaqankooda ku cusub oo ahaa halkan ha lagu xalaaloobo oo halkaa ha laga laabto intaasoo dhammi waxay sakiina ilaahay uu qalbigooda dhigay oo dadka muslimiintii markaa ay ismaqlaan ee madaxdooda khayrka ku hogaaminaysa ay dhagaystaan natiijooyinka wanaagsan ee ilaahay uu siinaya waxaa ka mid ah inuu u diyaariyo midnimada iyo quluubtooda inuu ururiyo kol hadday hoggaan midaysanoo xaq ku ururinaya wataan isla markaana waxa la isla waafaqay uu xaq yahay ilaahay qalbigoodu degalaanshaha dhigaya kolka ay dadka hogaaminaya iyo diinta saluugaanna waxa dhacaysa kala firidh walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waa kaa ilaahay tilmaamaya fashilaada imanayso waa imtinaan waxaa kaloo ilaahay ugu mana sheegtay iimaankiinii iimaan baa lagu kordhiyay haa mar alla marka aad imtixaan gudubto rikoodh baad dhigtaa oo waxaa lagu qoraa derajo sare imtixaan labaad haddaad gudubtana derajo kalaa lagu qoraa marka dambena khalfiyadaada iyo cv-gaaga si weyn baa loo qiimeeyaa ilaa intaasoo kayda baad leedahay oo derajooyinoo kuu qorane marka imtixaan adag bay galeen imtixaankii way gudbeen iimaankoodii hore mid kalaa ku biray marka derajadoodii hore derajo kale ayaa ugu sii korodhay iyadoo ahlu sunna waljamaaca ay daliishanayaan waa dadka muslimiinta ee saxana diinta ku toosane in dee iimaankii camalkii saalixa ahaa uu ku kobcayo sida macsiyada iyo dembigaba iimaanku ugu nuqsaamayo
oo wixii khayr ah iyo wanaag ah qofku uu sameeyo wuu ku kordhayaa macsiyada iyo dambigana waa ku yaraanaya laba jeer baa ilaahay uu soo celiyay halkan iyo aayadda 7 ba walillaahi junuudu samaawaati wal ard wa kaana allahu caliiman xakiiman wa kaana allahu casiizan xakiiman waa dhaadanaya ilaahay awoodayda ayaa leh cidina ma leh wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu colkiisa ilaahay isaga unbaa yaqaana colkiisa xagga saruu ka soo diraya malaa'ig buu ka dhigayaa shimbiruu ka dhigayaa sidii asxaabulkahf dabayluu ka dhigayaa sidii qoladii ku dhacday uxud wuxuu ka dhigayaa argagaxuu geliyo quluubta cadowga oo dabeetana wixii ay doonayeenba uu kala dhaco waxaa junuudda ilaahay ka mida awliyadan rasuulka garab taagan sala allahu calayhi wasalam iyo saalixiinta mar walba ku socda fii ixqaaqi alxaq inay xaqa xaqiijiyaan waa junuuddii ilaahay marka ilaahay baa cilmi iyo xikmad bale ilaahay baa ciisi iyo xikmad bale ilaahay tilmaamihiisa iyo sifooyinkiisa taa macnaheedu waxa weeye ka la iimaansadaa waa isaga awoodna leh hiilinna leh isagay tahay in laga xadhig xidho oo aan la saloogin natiijooyinka ay muuminiintu heleen waxaa ka mid a sidaa ilaahay nebigaba ugu bushaareeyey dembi dhaafka iyagana waxaa loogu bushaareeyey janno tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wayukafiru canhum sayi'aati in dembigoodiina laga dhaafo jannana la geliyo mar kasta oo imtixaankaasi yimaada cidda ku guulaysata jannadaasi helayaan cidda ku fashilantaana naartanay helayaan marka qolo waxay leedahay dembi dhaaf iyo janno iyo cisi qolona waxay leedahay cadho allah iyo cadaab iyo dulli saddexdaasa isu daba socda marka qolyaha hore waa liyudkhila khaalidiina fiiha wa yukafira intaasaa la isu daba dhigay munaafiqiinta iyo mushrikiintana wa yucadib almunaafiqiina waalmunaafiqaat waalmushrikiina waalmushrikaat الظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة سوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ومدي سيساسا إلهي إساقا كلا يقانا مدول بأبالكي ويستاهلي إيكوها بورابو سيي مركا الظانين بالله ظن سوء والذنوب تكوي إذا يسيين مشركين تيا منافقين وحي ملاينا يانا إلهي كم ملاينا يان ملاحهم ترين حنب إلهي كقبعا والنوعية تجاه أنفسهم وتجاه المؤمنين مركا لا يجي حقه ده إلهي الدرين وناكسن كما قوع مركا لا يجي حق المؤمنين تنا الدرين وناكسن إنه إلهي وح وناكسن سينا يما قوع وتقف كمؤمن كإلهي سكو كرسوني هاي قول الدنيا يمد آخرة وكفل يا كرسوني ذا وقوع واتكنتين ونفتي سقالي جاي مالك سبحيه لكن المنافق والمشرك ما قبل كرسوني ذا jannadu ilaahay ka filaya dee kani kama filayo taasaa waxay keentay in munaafiqiintii madiina ay soo raaci waayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkaa keliya hasha ku gabaday ayaa ka soo raacay mushrigna waa kaa intuu ilaahay saluugay qawaday dee soo raacay shaytaan ee rasuulkiisii ka hor yimi munaafiqiintii iyo mushrikiintu danna saw malaxun bay ka malaynayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dee aayaadka dambaa ilaahay ku fashilinayaaoo uu kaga warramayaa ظنه ملهو داس سايت البامس آيات لبية طبعا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وآيات ينقول حكتات البامس آيات كاسوا سعودة مركا إلهينا وحقوا بالقذي عليهم دائرة السوء حمان توريقيس بلايا وريقيس تشو ذي هات balaayada wareegaysa isleeyin ka baxsada iyagay ku habsanaysa waanay ku habsatay ficla fashilaadaasaa ku timi innaa arsalnaaka buu ilahay waanu ku dirnay nebi maxamedow annagaa ku dirnay shaahidan adigoo markhaatiya wa mubashiran adiga oo bushaaraynaya wa nadiiran adigoo digaya litu'minuu billaahi si ilaahay u rumaysaan baa sidaa laydinku hiiliyay ummad yahay ama nebiga loo soo diray أرسل الله رسوله لتؤمنوا بالله سيلاه الرميسان ورسوله الرسول كيسنا الرميسان بالله صادري وتعزروه إلهي أقوه لسان وتوقروه أوينيسان وتسبحوه أقوه تصبيح ستان إلهي ووحان قل منك هفتان بكرة قلن كهرئية وأصيلا قلن كالدنبابا
ina aladiina yubaayicuunak kuwa ku gacan qaadaya nebi maxamedoobe kula heshiinaya heshiiskaa baycatu ridwaan innamaa yubaayicuuna allah ilaahay bay la heshiinayaan yadullaahi fawqa aydiihim yadullah ilaahay gacantiisii fawqa aydiihim gacmahooday dul saarantay faman nakasa qofka jabiye ballantuu galay fa innamaa yankusu calaa nafsi naftiisunbuu u jabinayaa waxyeelada horaysa isagay ku dhacaysa waman awfaa qofka dhammaystira ee hirgeliya bimaa caahada calayhu allah wuxuu ilaahay kula ballamay fasayu'tiihi ajran cadiima abaalmarin weyn ayaa ilaahay uu siinayaa saasuu u ballanqaaday waa jawigii baynu ku jirnaa heshiiska iyo suluxaas iyo gacanqaadka rasuulku sala allahu calay wasalam baycada asxaabta uu la galay iyo nataa'ijkii ka soo baxay ee midhaha laga goostay ilaa horumarka mawaaqifta adag goobaha adag baa ayaa laga kasbadaa laga qaata nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay isagaa uga markhaati kacay inuu soo diray isagoo 3 sifo leh waa shaahid markhaati buu ku yahay gaal iyo islaamba labadaba markhaati buu ku yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam midna markhaati buu noqonayaa midna markhaati buu ku yahay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida arrinku siduu noqon maalintan maxkamadda ku soo joojin doono adigoo markhaatiya rasuul walibana ummaddiisii markhaati buu ku yahay waa markuu ilmeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam mowqifkaa iyo xaaladda la yaab kale intuu sawirtay ayuu ilmeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabigii waa ka ilaha u kaad intaas igu filan shaahid idan markaa ka fikir makuu nebigu u markhaati kacayaa waad noqonaysa mise kuku markhaati kacayo labadabana jawaabtoodii waad haysaa haddaad hadyigiisii iyo dhaqankiisii iyo sunnihiisii uu kugu weyn yahay oo aad hadyi tallaabadiisii gurayso wuu kuu markhaati kacayaa haddii kalena waa kugu markhaati rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa mubashiran wanadiira ummaddan ishaysa isiraac iyo legdanku caalamka ka dhex oogan yahay cidda nebi maxamed u hiilinaysa calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisii waa u bushaaraynayaa cidda ka soo horjeedana waa loo digayaa labadaa tilmaamood bay kala leeyihin ilaahay rasuulkan wuu soo diray ma uu ka dhigin mid malaa'igtu ay garbinaysay garba socoto oo bani aadanba la yidhi iska eega oo malaa'igtaasi markaa wax walba ay la fulinayaan laakiin wuxuu ka dhigay mid innaga inaga mid ah oo aynu garanayno oo ammaanadu sida ina dheer iyo fadliga uu leeyahay idan markaa ilaahay waxa uu leeyahay si aa u rumaysaan isaga iyo ilaahay soo diray rumayntaasina natiijooyin baa ka sii dhalanaya inay kaa dhab tahay iyo in kale rumaynta ilaahay iyo rasuulku hadday kaa dhabtay raadadkan iyo tallaabooyinkan aad qaadaysa watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabbixuuh walitu'minuu billaah watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabbixuuhu bukratan waasiilan marka afarta arrimoodba ilaahay ayaynu u gudanaynaa subxaana wa tacaala waynu rumaynaynaa waanaynu u hiilinaynaa waanaynu weynaynaynaa waanaynu u tasbiixsanaynaa si kale kolka loo eego qolyaha qaarkood waxay leeyihiin labadan hore rasuulka ayaa ummaddu ay kula dhaqmaysaa oo ilaahay iyo rasuulkaba waa rumaynaysaan watucaziruuhu nebigana waa u hiilinaysa watuwaqiruuhu waana weynaynaysa watusabbixuuhu ilaahayna waa u tasbiixsanaysa subxaanahu wa tacaala oo tasbiixda rasuulku ma lahae ilaahay unbaa leh tasbiixda iyo taxmiidda iyo cibaadada intaba ilaahay baa iskale subxaana waa hambaliyey rabbi waa ammaanay fadligooda ayaa aayaddu caddaysay maalin adag heshiis adag kuwii la galay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka asxaabtu had iyo jeer waxay leeyihiin dabaqaatu saxaaba shay la yidhaah baa jira jaranjarooyinka asxaabta marka la eego xagga fadligooda asxaabta kuweebaa u fadli badan markaa waa kuwa culamaaulxadiid tiriya asxaabta iyo darajooyinka ay kala leeyihiin xagga fadliga iyagoo wada fadli badan oo ilaahay wada ammaanu laqad radia allaahu canhum waraduu canhu iyadoo ilaahay uhi haddana way sii kala fadli badnaayeen ragga usii fadli badan waxaa ka mida qoladii beder xaadirtay baycatu alcaqabati اluulaa wa baycatu alcaqabati ahaaniya wa baycatu ridwaan heshiisyada raggii galay baa markaa ka mid ahaa iyo dagaaladaa kuwa kula mubaayacoonaya kula heshiinaya inamaa yubaayicuuna allaha yadullaahi fowqa aydihim ilaahay bay la heshiiyeenoo gacanta ilaahay gacantooday dul saarantay inamaa yubaayicuuna allah
wuxuunay la mid tahay man yudici rasuula faqad adaaca allah qofka rasuulka adeeca ilaahay buu adeecay heshiiska yuu u qaadaya iyo baycada yuu u saxeexayaa xaggiisa ka socda rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay subxaana wa tacaala waa ergeygiisa ilaahay diintiisu u yeelinaya oo waxa uu wadaa dowladnimadii islaamka oo dadkii muslimiinta buu badbaadinaya iyo caalamkii oo dhan oo ammaanadii buu difaacayaa markaas sidaasaa ilaahay u tilmaamay ilaahay baa ka raaliya ilaahay baa wehelinaya qof ilaahay gacan qaaday weeye qofka nebiga heshiiskan ku gacan qaaday ilaahay halkaas u gaadhsiiyey ammaantooda ragga ah wuxuuna la mid tahay aayaddii kale ilaahay uhi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum bianna lahum ljanna yuqaatiluuna fii sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayh ilaa akhir laaya marka ammaanta ay lahaayeen qoladii maalintaa heshiiskaa gashay ayay tilmaamaysaa aayaddu heshiiskan isagii wuxuu mudan inaan dib looga noqone hore loo sii fuliyo qofku inta uu fii qayd alxayaa intuu nool yahay maaha maalmahaasoo qura ma shaqaynayo laakiin waa heshiis soconaya faman nakasa fainamaa yankusu calaa nafsi waman awfaa bima caahada calayhu llaha fasayuutiihi ajran cadiim nakfigu waa jebintii iyo ballanka baxa iyo burinta heshiiska ka buriya fainamaa yankusu calaa nafsi rasuulka waxba ma yeelin diintan ilaahay baa u jira oo barbar taagana waxba ma yeelin ilaahay waxba ma yeelin laakiin isagaa wax isyeelay kol hadduu aayihiisii dee ku tuntuu dee rasuulkii ballantii kaga baxay ballanta halkaa ka sii wada weeye islaamkan ku dhintoo ku noolaada ka oofiyana ilaahay baa ula diyaara ajrigii weynaa waa bushaaradaasaa la siiyey markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi asxaabta sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixaynku antum khayru ahli اlardi اlyowm maanta raggiinna heshiiskaa saxeexay dadka caalamka ku nool oo ku jiraan kuwii madiine lagaga yimi idinkaa u khayr badan shaabadaas ugu dhuftay rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa yadkhulu nnaar axadu miman baayaca taxta ashajara naarta geli maayo raggii igula mubaayacooday geedkaa hoostiisa ilaahay uu sheegay dabeetana markii dambe waxay noqotay in nimankaa la majeerto qof waliba yidhaa warman aniguna raaco haddaan ku biiri lahaa ilaa waa maalme eh fursaddu waa marunbay soo maraysa dadka qaarkood geedkii baa la hadal hayeyba warnimayow geedku wanaagsana geedkan qur-aanka lagu sheegay war geedku mee si aan dadka qaarkood ugu warwareegin ile qaar baa hadday doonaan oo barkhadle ka dhigan bani aadamka si aan loogu warwareegin ayaaba la garan waayeyba asxaabtu ridwaanullaahi calayhim waxa ay tilmaamayaan waabaanu garan weynayba oo meel alla meel ahaydba musayib oo saciid musayib aabihii oo raggii baycadaa galay ka mid ahaabaa wuxuu leeyay fandalaqnaa min qaabilin xaajiin waqti dambe oonu xajaynay baanu isku daynay inaanu hello fakhafiya calayna makaanuha meel alla meel aytay waa la garan waayay margeedkii mee waaya sayaquulu buu ilaahay yidhi dhacdadaa iyadaa waxyaabii rag wuu ku guulaysto ammaan buu helay imtinaan ilaahayna waa helo deeqdaa ilaahay baa ugu mahadno sheegay adduunyada warunbaa ka hadhe ragna waa fashilmay dabeetana sirtoodii baa ilaahay uu soo qufay iyo hadalla maalintaa ay ku marmarsoonayeen inay been ahaayeen markii laga soo anbabaxayay madiine sannadaa 6aad 1200 nebiga soo raacayeen nimankii meeraystee kala midhiiqiye hululaha galay maxay talo u jeedeen ma run bay ka ahayd waxaasi mise been waa tan asraartii qur-aanku soo qufay sayaquulu laka almukhallafuun sayaquulu laka waxay ku odhan doonaa nebi maxamedow almukhallafuuna kuwii la dib riday shaydaanku uu la hadhay baroosinka u aas oo min alcalaabi reer miyiga halkaa joogay shaqalatnaa amwaalunaa xoolahayagii baana mashquuliyey wa ahluunaa iyo reerahayagii fastakfir lanaa ilaahay dembi dhaaf noo weydii alla wuxuu idhi yaquuluuna bialsinatihim hadda carabkooda waxay ka odhanayaan buu ilaahay yidhi maa laysa fii quluubihim waxaan qalbigooda iyo gudahooda ku jirin qul waxaad tidhaha faman yamliku lakum min allah faman yamliku lakum oo yaa idinka hananaya min allaahi rabbi xaggiisa shay-an wax yaa faa'iide ilaahay idinka keenaya in araada bikum daran hadduu dhibaato idinla doono aw araada bikum nafcan ama dheef uu idinla doono bal yaa ilaahay idinka muslaxaya oo idinka joojinaya yaa idinka dhicinaya bal kaana allaahu rabbi wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna khabiiran camalkaad samaynaysaan buu xogagaal u yahayoo
abaalkiisa isagunbaa idinla diyaara maxay damacsanaayeen tolow koodii la beeni ilaahay baa sirtii fashiliyo wuxuu ihi bal danantu waxa idin reebay baa la sheegi ee nebigii asxaabtu sanadii 6aad markay u baxayeen cumrada waxa idinka reebay baa la idin sheegi doonaa madiina dadkii joogiya hareeraheeda bal danantum waxa moodaysaan allan yanqalib ar-rasuul inaanu rasuulku soo laabanayno oo soo gadoomayn iyo wal mu'miniinta la socotaana inaanay soo gadoomayn ilaa ahlihim abadan reerahooda inaanay weligoodba ku noqonayn halka lagu liqayo wazuyina dhalika fi qulubikum arinta waa la qurxiyayo qalbigiina lagu qurxiyo shaydaan baa sida idin qurxiyay gaaliya munaafiqow dareenkaas qabteen wadanantum dhanna saw malahuna waa malayseen ilaahay baa malahun ka malayseen wa kuntum qawman waxa noqoteen qolo buura halka halaagsamay oo arax jabay ومن لم يؤمن بالله ورسوله كجبال ليدين شيغيه ومن لم يؤمن بالله ورسوله إلهي الرسول كي سعيدان رمين فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا قالوا نار العيسان ديارنا إلى إلهي ولله ملك السماوات والأرض إلهي وحكالي إسكالي لها شاه سموين كي يدولك يغفر لمن يشاء عدو دونو داف ويغفر لمن يشاء عدو دوننا ويعذب من يشاء عدو دوننا وعقابي وكان الله ربي وحو هذا غفورا دنبغا مid dhaafa raxiiman oo naxariista fursadii wali waa haysataana ka faa'iideeyo way quraanku waa kalaam mucjisnimadiisa iyo icjaaskiisa waxa kamida wuxuu ka waramaa damiirka dadka iyo uurtooda iyo quluubtooda waxa ku jira ayuu ka shifaa oo wax kale cid kale oo ogaanaysa aanay jirin maragna ma ogaan karo jinna ma ogaan karo insina ma ogaan karo arinaadu cajiib way mucjisaadka quraanka ka mid inuu sidoo qaybka iyo waxa soo socda ee aan dhaweynaan dhicin uga waramo wixii dhacay fogaana uga waramo ayaa qulubta dadka waxa ku sugan buu ka waramaa nimankii munaafiqiinta reer miyiga ah ee Madiina hareera joogay iyo kuwii Madiina joogayba markay nabiga ka hadhayeen marmarsoonayeen iyo markuu ku noqdayba ay isbaraxayeen waxay yiraahdeen shaqalatna amwaaluna wa ahluna fastaghfir lana dadkii iyo dunyadii baan mashquuliyay de xoolihii un baanu kala hagaajinayn caruurtiina way dayacnay ciidaanu kaga tagnaba waa weynay de halkaasaanu ku hadhno de cudurdaar baanu lahayne ilaahay dambi dhaaf noo weydii hadaanu geef galay halkaasay mariyeen habartii ciyaalku ku meeraystaa ka macnaha darani islaantii wuxuu ku meeraystaa ubadka oo uraada kana ahayd oo miyay kan beelaysa saasay yiraahdeen ilaahayna wuxuu yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulub waxa afka laga yiri uu khilaafsan waxa uurku muxuu noqday waa kan ilaahay baa banaanka soo dhigay aayada dambaa sheegtay ilaahay baa leedii masaydan garan qul faman yamliku lakum min allahi shay'an arada bikum darran wa arada bikum naf'a bal ya ilaahay idinka xiga ee wehel idinka noqonaya dib iyo dheef haduu idin la doono in arada bikum darran aw arada bikum naf'a marka faman yamliku lakum min allahi shay'an waxay sheegaysaa yaa ilaahay wax idinka hananaya ee dheef idin soo jiidaya haduu idin diido ee dhibaato idinka joojinaya haduu idin la doono dawaacidnaba ilaahayna wuu arkayaa bima taamaluuna khabiir buu yahay khabiira waxogaan marka wuxuu isu eegayaa amalkiin iyo ciqaabkiin waxa maleynayseen alla yanqalib ar-rasuul wal mu'minuuna ila ahlihim abadan nabigiyo mu'miniintu inaanay soo noqonaynin waligoodba oo reerahooda ku soo laabanayn war waa kuwa goblamay war waxani dagaal ma aha waa dab isku tuurnimo bay oran jireen war xaj iyo umra ma aha ummadda meel lagu halaagaya lagu sii wadaa waa kuwa caruurtii ay ka tageen agoomoobay nimankii halkan inoogu yimi goormay ka tageen halkan quraysh de sanadii labaad bay yimaadeen 400 dheeraadka kiiloobe u sii socdeenay ku duuleen Madiina sanadii labaad iyo sanadii saddexaad iyo sanadii shanaad gaashaanburi iyagoo iswata ayay yimaadeen Uhud iyo Ahzaab Khandaq labadaba haraadkoodii baa nimanka sii qoyane ma nimankii kumayaalka ahaa ee halkan shalay tala inagu soo hujuumay ayaa maanta iyadoo la iska kolanyeysan yahay oon dagaalba loo diyaar ahayn ayuun baa loogu tagi doonaa un xaramkoodii wallahi taasi waa dab isku tuurnimo bayda
taa xajiyo cumro lama idhaahdee war dadkani soo noqon maayaan way ka tegeen kuwaha laga samro wadanantum danna sawi wa kuntum qowman buura saasuu filaya had iyo jeer wuxuu malaynayaa qofka iimaanku ka qoonmay in khatar uu galay qofka uu ku dhinto nabadgelyo badan oo haystana uu ku nabadgalo ilaahayna wuxuu tilmaamay arrimuhu inay gacantiisa ugu jiraan oo waxa uu yidhi qofka aan ilaahay iyo rasuulka rumaynin ka halaagsamay waa marka buuran eraygu buuran waa halaag buuran halaag wey marka waman lam yuumin billaahi warasuulihi fa innaa actadnaa lilkaafiriina saciira kan ilaahay isu dhiibay ee rasuulka garab galay ee amar alle ku soconaya wehelkii ilaahay haysta kaasi muu halaagsamin laakiin ka halaagsamay waxa weeye ka iimaan la'aanta ku hawlgalaya iimaan la'aanta ilaahay iyo rasuulkaba aan rumaysnayn een diin haynin dadnimo taa moodaya cadaab baan ula diyaarahay baa ilaahay waxa uu halkan ku tilmaamay isagoo dhaadanayo awoodiisa xusaya walillaahi mulku samaawaati walard walillaahi mulku samaawaati walard ilaahay baa leh samooyinka iyo dhulka lahaanshooda isaga gacantiisay ku jiraan cadowga isaga ayaa duqaynaya oo karbaashaya isaga ayaa qalbigiisa hayo sii jeedinaya soo jeedinaya addoommo ma haystaan adduunyada ilaahay baa haysta yakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa wa kaana allahu gafuuran raxiima sidaasi baa markaa rabbi ummadda uu ku hambaliyey uguna bushaareeyey jawaabo badan uuga xil qaaday oo xaggooda uu ka jawaabay dadka mu'miniinta ah wax fara badan oo ay kuwa kala dareemayeen iyo asraar meesha ku jirtayba ilaahay baa fashiliyo cadcadeeyey subxaana wa tacaala marka waa jawigii qisadii aynu soo sheegnay ayaa qur-aanku cajaladaa dib loo soo celinaya la leeyahy bal waa taas dib u dhagaysta oo dib u daawada oo dib u sawirta muuqaalkii maalmahaa jiray iyo halkaa filayseen iyo halka ilaahay idin keenay subxaanahu wa tacaala si markaa dadku waxa howlgalka dambe ay samaynayaanna ay tan ugu dhiiradaan wallahu subxaana wa tacaala